Hay soo dhawaada saaxiibayaal kuna soo dhawaada seasonkii inoo socday qaybtiisa labaad. Canshuurta iska bixiya oo muuqaalkan like sara 24 habar 2500 oo like waa inaa gaarsiisaan. Kool ayaa socda oo Mohas waa uu idin soo jeestay saaxiibayaal. Alahooyoy ayaan idinka keeni doonaa. Haddii aad rabtana season in lagu soo khulaasay Instagram-ku way igula soo wadaagi kartaa. Muuqaalkana sii share garay oo la wadaag saaxiibadaada. Sidoo kale ku soo bir channelka haddii aadan weli ku soo biirin waxa saaranay wadadii aad ku gaari lahayn 100,000 oo subscribe. Intaas haddii aad samayseen aad ay u mahadsantahay awaalkaada waxa ku guda ma aqaano haddana aan guda galna muuqaalkeena. goosan wuxuu ku dhahayaa haddii aad guurkayga aqbasho weliba aad ku guursado shirkadeeda ugu weyn adiga ayaa maamula kaaga dhigi doona ayuu ku dhahayaa. Yoran waxay weydiinaysaa asiga sababta midan uu sameynayo. Wuxuu ku dhahayaa aniga waxa laga yaabaa waqtiyada soo aadan inaan geeriyoodo ama wali dilo sida awgeed dhaxalkayga waxa qaada lahaayeen ayuu ku dhahayaa dad caasi waalideen. Anigana waxa rabaa midaas inaad ka faa'iidaysato weliba familkaada aad waxa uu qabato. Tanina waa jaanis weyn ee adiga ku soo maray ayuu ku dhahayaa waxa loo baahan yahay sida taa inaad aga faa'iidaysato. Talyaaniga waxa ay dhigi jireen okasiyoon inaan beer daro laakiin Yoran ayda indho oo kaliya ayaa ka soo haray asiga ayayna la yaabanay. Maxaa yeelay goosan wuxuu ku hadlay maskaxdeedu waa ay ka weynay asagan inay ka faa'iidaysato ayuu ku bariyay wuxuu ku dhahayaa maanta haddii aad ka faa'iidaysan ways wala biritole adiga ayaa xanuun dareemi doono laakiin Yoran midaas waa ay ka diidaysaa aad ayaa u masantahay ayayna ku dhahaysaa. Intaas wixii ka dambe qolkeeda ay ku soo laabanaysaa oo waxay bilaabaysaa boorsadeedii inay dharka ay ku gurato asaate isla markiiba qof ayaa soo wacayo lacag ayuuna weydiinayaa. Aydan xilligaas wax lacaga gacanta kuma aysan haynin waxayna ogaanaysaa dhab ahaantii jaaniskan in loo baahan yahay inay ka faa'iidaysato. Ugu dambeyntii goosan ay dib ugu soo laabanaysaa faraantii ayayna gacanteeda gashanaysaa waxayna ku dhahaysaa aniga waa ay guursan kartaa weliba diyaar ayaa ku ahay. maalinka xiga goosan darawalkiisa ayaa arkaynaa xilligaasi gabaarida goosan uu leeyahay ayuu sawiro iskaga qaaday wuxuuna iska dhigay inuu asaga leeyahay oo kale. intaas wix ka dambeeyna guriga ayuu dib ugu soo laabanaya isagoo kafee cabayo. maalinkaas waxaa dhacaysa Yoran kafeegiis inuu kaniini ay ugu darto goosan maalinkaas balan ayuu lahaa oo waa ay soo baxayaan ugu dambeyntii laakiin darawalkii waxaan dareemayna asiga xanuun inuu dareemayo calaashaan caloosha ayaa zaa'id loo qabanaya. intaas kadib goosan ayaa ku dhahayo iska har Yoran ayaa i kaxeynayso asagana sidaas ayuu ku harayaa laakiin waxaan ogaanaynaa tani inay labadooda ay ka dambeeyeen. ugu dambeyntii xarunta isku guursada ayay imaanayaan labadooda Lihan ayaa la socday. sidoo kale maalinkaas waxaan ogaanaynaa Lihan asaga inuu yahay goosan lowyarkiisa. habeenayda ayaga signature ka qaadaysayna waa ay ku wareeraysaa calaashaan waxay rabtay markhaatiyaal fara badan inay la socdaan laakiin waxay ku dhahayaan anaga ilmo manihi ee waa inaa howsha noo fududeysaa. ugu dambeyntii ayaga waxay noqonayaan lamaano. intaas wixii ka dambeeyna gurigooda ay dib ugu soo laabanayaan. Yoran waxaa lagu dhahayaa haddii iyo wixii ka dambeeya isaga waa ninkaaga laakiin dadka hantidiisa la wareegayaan adiga waxaa ka mid noqon doonta muddo 3 bilood kadib. waxayna ku dhahayaan anaga qaanuunada ku soo bandhigayno adiga waxa waajib kuugu ah inaad qaadato maxaa yeelay amnigaaga ayaa ka taxdirina ayay ku dhahayaan. isla maalinkaas waa ay soo baxayaan waxayna imaanayaan meelaha dadka markay isguursadaan ee imaada weliba sawirada ee ku galaan waxayna galayaan sawiraan aad u qurux badan weliba lamaano. sidoo kale goosan wuxuu hore u soo marayaa nin ee saaxiibo ahaye maqaayo uu lahaa halkaasina induumi ayuu ku soo cunayaa. ugu dambeyntiin gurigooda ay dib ugu soo laabanayaan. habeenkaasina waxaa dhacayso goosan asiga cashada inuu diido saddexdoodana mar kale ay dib iskugu soo laabanayaan si ay u tashtaan. goosan iyo Lihan ayaga fikir cusub ayay la imaadeen fikirkaas oo ahaa Yoran ayda magaalada inay iskaga tagto muddo 3 bilood maxaa yeelay magaalada halista ka jirta ayaa zaid ahay. waxayna ku dhahayaan adiga waxa laga yaabaa in lagu dilo haddii aad halkan sii joogto sidaas awgeed muddo 3 bilood waxa wanaagsan inaad magaalada iskaga tagto. Yoran fikirkaas loo soo jeediyay xoogaa waa ay la xanuun badnay laakiin danteeda oo kaliya ayaa laga talinayay. sidoo kale ayda aqoonsiga oo dhan ayay ka bedelayaan aqoonsi cusub ayayna siinayaan magacna waa ay ka bedelayaan Buzem ayay u bixinayaan laakiin anaga kaliya magaciina ayaa sii wadan doona. Lihan ayaa ku dhahayo magaalada u socotid walaasheeda ayaa degan halkaas iskuul ayay ku dhigtaa adigana haddii aadid ku micloon doontid. intaas wixii ka dambeeya Joy ayaa ka shakinaysa ayaga waxay ka wada hadlayaan fidna meel ay ka gaartay in ayda dhigta ay iridda soo saaranaysa hasaate Yoran ayaa dareemaysa iridda in la taagan yahay weliba la dhageysanayo saaxiibada kale ayayna aamusa ku dhahaysa. intaas wixii ka dambeeya iridda ayay ku furaysaa oo Joy ayaa hore qolka u soo galayso. goosan asiga kama waalay wuxuu ku dhahayaa cuntooyinka aan maalmahan karinayso waa inaa wax ka bedeshaa calaashaan kama aanan helin ayuu ku dhahayaa. idhikaar ayuuna u soo dhiibayaa wuxuu ku dhahayaa intii kugu filan oo lacag waa kala bixi kartaa. ugu dambeyntii saddexdooda kal fadhigooda oo uu soo dhamaanaya oo go'aan dhab ah ayay iskula qaadanayaan. go'aankaas oo ahaa Yoran ayda magaalada inay iskaga tagto. maalinka xiga waxaa arkaynaa wiilka strawberry uu guriga keeno Jordan ayaana lagu magacaabay. waxay ahaataba goosan ayaa u wacaya wuxuu ku dhahayaa magaalo kale guri iigu yaal haddii aad ku dhow strawberry waa inaa ii geysaa ilaa meeqa ayay kugu qaadanaysaa. Jordan wuxuu ku dhahayaa xoogaa waa ay xanuun badan tahay magaalo kale haddii aad u safrayo ku dhawaadna 4 saacadood inaa wadada ku sii jiro ayay igu qaadanaysaa ayuu ku dhahayaa. Lihan iyo Yoran ayaana meesha imaanayaan. sidoo kale waxaan ogaanaynaa Yoran ayda inaysan ku safray rabin diyaarad ee ku safray rabta gaari. Jordan iyo goosan ugu dambeyntii waa ay heshiinayaan isagana waa uu ka tagayaa. sidoo kale Yoran ayda qolkeeda ay dib ugu soo laabanaysaa laakiin isla markiiba waxaa soo wacaya goosan xilligaas waxay u muuqatay asiga xaalad xun weliba dhab ah inuu ku jiro. Yoran waa ay dareemaysaa oo dhankiisa ay soo aadaysaa isagoo dhulka jiifa weliba tacbaan ayay u imaanaysaa. isla markiiba goosan isbitaal ayaa la keenayaa waxaana la bilaabayaa in lala tacaalo. dhakhtarka iyo goosan ayaga saaxiibo ayay ahaayeen. waxa uu ku dhahayaa goosan oo dhab ahaantii
maantay adiga kali 3 bil ayaa ku hartay oo 3 bil kadib waxa laga yaabaa ayuu ku dhahayaa dhulka in laga hoos mariyo kansar ayaa qabta ayuu ku dhahayaa 3 bil ka badan ma sii noolaan doontay xilligaas oo hadalkaas uu sheegay habeenay kalkaalisa ay ayaga hadalkooda dhageysanaysay intaas kadib habeenaydu waxay soo wicisa goosan gabadhiisa Sion waxay u sheegaysaa aabaheeda kali 3 bil inuu noolaan doono asigana cudurka kansarka ayaa laga helay ay ku dhahaysaa Sion hadalka ma dahinayso oo walaalkeeda ay la wadaagaysaa ayada iyo walaalkeeda wana waxay ku faraxsanayeen aabahooda inuu geeriyoodo dhab ahaantiina labadooda aabahooda nacayb dhab ah ayay u qabeen oo kaliya waxay rabeen dhaxalkiisa inay la tagaan ani hadda ahaa lahaa ilaahay igama dhiga dhaxalkayga ayaa ku saxiixi lahaa sheekada haddii ay halkan gaarto ilaahay igama dhiga markay adhahay ulama jeeda inaan lacagta diida ee asiga waa gaal ugu dambeyntii hoygiisa ayaa dib loogu soo celinaya goosaan habeenkaasina Yoran ayada wejigeeda murugo ayaa ka muuqatay asigana wuu iska faraxsanaa oo kama qasneen intaas wixii ka dambeeyay cunto iyo doon ayuu ku dhahayaa qolkiis markay ay ka soo baxdan kaamira ayuu shidanayaa gabadhiisii hore ee geeriyootay Yerim ayuu la hadlayaa wuxuuna ku dhahayaa aniga waa ku xiisay waqtiyada soo aadana waa kulmi doonaa intaas wixii ka dambeeyay biskoolada ayuu isku dhufanayaa dabaaqa biskooladana banaanka ayaa laga maqlayaa Yoran ayada waa ay naxaysaa ayada ordes ayay qolkiisa imaanaysaa laakiin xilligaas waxba kama aysan gaarin maxaa yeelay asigana waxba kuma aysan joorin shaqaalaha oo dhan ayaana ogaanayaan asiga inuu geeriyooday ugu dambeyntiina dowladda ayaa meesha imaanayaan oo meedkiisa ay la xil wareegayaan dhammaan shaqaalihiisa iyo dadka asiga u dhawaayeen waa ay ku xumaanayaan geeridiisa laakiin labadiisa ilmo Sion iyo Won aad ayay ugu faraxsanayeen oo waa ay qosol gariirayeen maxaa yeelay hantidooda ayaa u imaaday ugu dambeyntii alaashaan dhaxalkay leeyihiin ayaa ka wada intaas wixii ka dambeeyay waxay imaanayaan meesha uu meedkiisu u yaalay laakiin halkaas Yoran ayaa joogtay weliba ugu dambeyntii banaanka u soo baxday alaashaan dadkii ay ogaadeen ayaa ka wada ayada inay xaaskiisa ee tahay Sion ayada waxay bilaabaysaa inay ku dhahdo adiga aabaheyga goormo ku aroosay halka Wonna ayada laga celcelinay wuxuu wataagnaa tani waa dilaya aabaheyga boodigaar ayay u ahayd ayuu ku dhahaya sidoo uu ku aroosay intaasoo rafaadna waxay u marayeen ayaga dhaxalka inay la qaybsato laakiin Yoran waxay ku dhahaysaa hadda iyo wixii ka dambeeya aniga hooyadiina ayaa ahay sidaa awgeed qudarin ayaa idinkaga baahanahay moohasna waa aabihiina xoogaaba inaa lacagta ka siisaan sidoo kale meesha waxaa imaanayo Jordan laakiin xilligaas meesha cidla ayay ahayd ugu dambeyntiina Yoran gurigeeda ay dib ugu soo laabanaysaa waxa uu imaanayso gabadh ee qolka ay iskula deganayeen waxay ku dhahaysaa waxaan aan maqlayo run miya alaashaan adiga inaad tahay goosaan xaaskiisa Yoran ha ayay ku dhahaysaa waa run weliba tani waxa ay dhacday xilli ay dadkii dhan ay wada jiifeen xilligaasna Yoran ayada dharkeeda ayay borso ku guranaysay intaas wixii ka dambeeyay waxay imaanaysaa qolka xaajigeeda iyadoo murugada ka muuqata laga dareemayo wejigeeda dhab ahaantiina inuu dhinto ayada aad ayay aagu xumayd Sion iyo walaalkeeda Wonna ayaga dhaxalkooda ay u dagaalamayeen oo geedbageed ay la qabsanayeen waxayna ka soo horjeedeen Yoran ayada dhaxalka inay la qaybsato intaas wixii ka dambeeyay Sion waxay soo wicisa kuukarada aabaheeda Joy waxay ku dhahaysaa Yoran muddo 2 isbuuc haddii ay magaaladan ku sii haaso 100 milyan ayaa ku siin doona ayay ku dhahaysaa Yoran ayada waa ay bixirtay oo magaaladan oo dhan ayay ka tagiratay maxaa yeelay hore ayay ugu wada balameen goosan iyo Lihan iyo ayada intaas wixii ka dambeeyay Joy hadalkaas waxay la wadaagaysaa darawalka 100 milyan ayaa nala siinaya ayay ku dhahaysaa anaga halkan haddii aan ku sii hano muddo 2 isbuuc Yoran waana kala qaybsanaynaa ayay ku dhahaysaa laakiin hadalkooda waxay maqlaysay gabadhii Yoran kolka la degnay intaas wixii ka dambeeyay Yoran ayay u imaanaysaa waxayna u sheegaysaa darawalka iyo kuukarada in ayada ay u tashanayaan muddo 2 isbuuc in halkan lagugu sii hayo ayaa loo baahan yahay ayayna ku dhahaysaa intaas wixii ka dambeeyay Joy waxay kafee u soo sameynaysaa Yoran darawalkan bud ayuu u soo diyaarsanaya wuxuu rabay inta kafeega loo dhiibaa inuu madax uu aga dhafto weliba ay suuxiyaan ugu dambeyntii Yoran ayaa qaybta hoose u soo deganayso aydan waxay dareemaysaa kafeega inuu wax uu ka qaldan yahay weliba kafeegeeda ee ahayn wejiga ay kafeega aga shugaysaa Joy darawalkiina waa ay ku daraysaa oo dhulka ay seexinaysaa intaas wixii ka dambeeyay meesha waa ay ka baxsanaysaa Joy darawalka ay ku qaylinaysaa waxayna iska soo jaraysaa 100 milyan ayaana dhaafsiisay adigoo faraxsaday xaliimo dhul ku dhigi kartaa weliba ay kaaga baxsan kartaa ayay ku dhahaysaa sidoo kale goosan ugu dambeyntii waa la gubayaa meedkiisa Sion waxaa loo soo sheegayaa Yoran ayada magaalada inay ka baxsan rabto ayadan waxay amraysaa in la soo qabto weliba gacanta lagu soo dhigo Yoran gaari ayay soo qaadanaysaa oo ugu dambeyntii waxay imaanaysaa ilaborka ay ka bixi rabtay halkaasina waxaa ka daba imaanayeen tuugada ee ka soo daba dirtay Sion laakiin ugu dambeyntii waa ay ka soo baxsanaysaa baskeeda ayay ku soo dhacaysaa oo magaaladii ay rabtay ayay soo aadaysaa ayadan ka hor intaysan imaanin ilaborka ay soo wacday Lihan xaaladda taagan ayayna la wadaagtay asigana ilaborka ayuu ugu imaaday baasaboor ayuu soo siiyey sidaasina waxaa ku suurta gashay Yoran ayada ugu dambeyntii magaaladii ay rabtay inay imaado laakiin dhibaatada jirta ayaa waxay tahay ayada magaaladaas cidna kama garanayso oo waa markii ugu horeysay ee halkan ay imaado intaas wixii ka dambeeyay si lama filaan meesha waxaa ku imaanayo Jordan asagana gaarigiisa ayuu kasoo deganaya ayada ayuuna u imaanaya wuxuu ku dhahayaa Yoran adiga soo ma ahan ayada waa ay ka cabsanaysay marka hore oo waa ay u jaakiraysaa laakiin gadaalihii dambe waxay ku dhahaysaa ha waa aniga asagana quruxdeeda ayuu ku indhasasay oo indhihii ayaa kasoo dhici rabeen siduu u dayayay goosaankan haddii uu arki lahaa indhaha ayuu kasoo saari lahay maxaa ilay ninkaas ma jecli in xaliimadiisa laga fiifiiriyo seasonkan qaybtiisa labaadna halkan ayay inoogu eg tahay waxay ahaato like sara muuqaalka oo kusoo biiri janalka sidoo kalena sii sheer gareey oo la wadaaga saaxiibadiina haddii aad
rabtana siiso in lagu soo khulaasiyay dhankaas iyo Instagram-ku ay gula soo wadaagi kartaa inta aan ka kulmeynana muuqaalka xiga nabada